maanta oo ay tahay bishu 18 bishii 7 2019 maanta barnaamij baanu duubaynaa oo ah habka gaasta loo isticmaalo waa gaastan raashinka lagu karsado habka loo isticmaalo iyo sidee nabadgelyo u tahay iyo sidee dadkeen uga baqaan labadaas isma laha marka haddii alla ka dhigo imika madbaxa waxaad ku aragtaa in haanti gaasta iyo shooladii isku dhow yihiin taasoo aan la ogoleyn marka horeba dabku iskama yimaado wuxuu ku yimaada khalad ee dadweynuhu sameynayaan marka khaladkii ugu horeeyey waa adinkan arka marka labadan arrimood isma gelayaan waxaa loo baahan yahay gaastu had iyo jeer inay taalo wadada laga soo gelayo ama albaabka laga soo gelayo si haddii wax u dhacaan qofka intuu albaabka kasoo tiigsado uu gaasta ka xidhi karo mar haddaad gaasta xidhidna meeshu waxay noqonaysaa nabadgelyo noqonaysaa laakiin hadday noqoto inaad meeshii gubanaysaa soo dhexgashid haantii ama oo la haysto amba shooladii oo la haysto haddaad istiraadid markaa u tag dee uma tegi kartid marka talabaada loo baahay waxa weeyaan dee adduunku isticmaalo haantu hadday jeer waa mamnuuc iyo maxaa la idhahdaa iyo shooladu inay isku maqsin yaaliin shooladu haddii taalo madbaxa waxaa loo baahay haantu inay gidaarka kasii jeeda ee taalo loo soo dalooliyo gidaarka bibeka amba tuubada loo soo geliyo hadhow maxaa la idhahdaa marka labadii waa kala gaar hadduu kani gubto waa gaar haddii haantu xagga dambe daba qabsado waa gaar marka khaladaadka ugu horeeya horta waa in saa loo saxa waa in la kala fogeeya haddii gidaarka loo daloolin karina meesha laga soo gelayo waa in haantu taalla marka bibeka xagga soo raaciya xagga dambe laga soo raaciya ama midigta laga soo raaciya markaan kuleeyahay khaladaadka dadka sameynayaan ayuu had iyo jeer dhibaato ka timaada horta maanta dadweyne waxaan ku dhiirinayaa gaastan eenu isticmaalino isaga ayaa dhuxusha ka fiican kana jaban kana caafimaad badan xagga deegaanka haddaad eegtidna dee isaa ka nadiifsan midda kale waxaa laga raysanayaa geedihii la goyn jiray ayaa laga raysanaya maadaamaaynu gaas haysano geedahaasi waa in laga maarmaa oo gaasta la isticmaalaa dhuxusha iyo gaastu waa isku lacag haddii imika si fiican aad u isticmaashid markaad dhamaystid kan ka xidhin halkaad laba jawaan dhuxula ka isticmaaleed kan laga yaaba inaad nus ka isticmaashid amba aad ka isticmaashid xabad marka xagga qiimihiina saasoo kale fiican yihiin weliba waxa ka raandhays fiican gaasta ka raandhays fiican hase haatee qalad dadweynuhu sameynayaan ayay gaastu ka hor dhamaanaysa waxay uga hor dhamaanaysaa iminka bal guri walba taga dabka had iyo jeer gaasta marka raashinka lagu karsanayo dee valveka waa la furaya halkana way ka furayaan marka iminka raashinka la dhameeyo amba isticmaalkiisa la dhameeyo had iyo jeer dumarka amba qofka isticmaalaya wuxuu ka baktinaya halkan oo keliya wuxuu deenayaa valvekii oo furan maadaama cabursan yahay caburaad xoog leh lagu caburiyo halkani dee caburaadii halkee tegaysa caburaadii waxay haynaysaa amba dhibaato keenaysaa bibekii tegayey maxaa la idhahdaa shoolada marka laba arrimood baa dhacaysa in halkan uu ka soo baxo amba uu maxaa la idhahdaa shooladii uu ka soo baxo marka uu xagga shoolada hadii jeer xagga shooladu ka soo baxa shoolada markay ka soo baxdo meeshiina dab jiro waa inuu gaastii dee ololaa marka khaladaad kala sameyn waxa weeyaan marka isticmaalkaaga dhamaysatid waa inaad kaa xidha kanna xidha kan marka hore xidh kaana marka dambe xidh dadka waaweyn ee guryaha joogana waxaan ku waaninaya had iyo jeer hal isticmaal ama isticmaalin bal u tag haanta iyadoo isticmaalin had iyo jeer baakaasaa furan marka gaastan had iyo jeer laga baqanayo innaga ayaa gardara sameynaa gaasta iyo dhuxusha gaasta ayaa nabadgelyo badan boqolkiiba 95 gaaska ayaa nabadgelyo badan sababtay tahay gaasta markaa isticmaashid qofka maartay foojigan halkan uu ka baktiyo halkan uu ka baktiinaya waa marka dunidu waa nabad laakiin dabku wuxuu sameeyaa girgiraan markaad dhamaysatid raashinkaagii dee dabkii soo hadhay in badan ku shidnaanaya markaasaa dadweynena ka tegayaan iminka boqolkiiba 95 dababkan lagu yeedho girgiryaasha ayaa sababa gaastu waxba ma sababto gaastu waa boqolkiiba labadaasina qofka isticmaalaya ku xidhan tahay oo khalad sameynaya marka waxaan dadweynaha kula talinayaa gaasta iyo dhuxusha
gaasta ayaa nabadgelyo aada u fara badan leh marka siyaabo badan bay u gubataa mar dhow waxaan istusi doonaa oo aynu baktiin doono ood arki doontaan dabka caadiga iyo dabka halka gaasta ka baxa inuu dabka gaasta ka baxa hawl yar iyo habka loo baktiyo xagga haddii uu dab kaco had iyo jeer dadku waxay dhahdeen haanba qaraxday horta haan qaraxda meeshan ma taalo haanta waxay ku qarxisaa markuu dab aada u weyn oo uu gaadho oog ama uu gaadho halase xagga af soomaaliga waa markuu dabkuus wada qabsado midda kale markuu dhowr saacadood uu dabkaa ku dhex jiro ayuu haantaasi wax noqon karta laakiin dab inagu qarxin karaa ama dab heerka gaarsiin karaa horta inagu ma lihin haantu ma qaraxdo had iyo jeer dadku waxay haantu way qarxa laakiin haanka qarxa male haantu way oloshaa waxay ololeysaa dee gaas baa ku jirta gaastii hadduu dab helo waa inuu ololaa marka dadweynaha waxaan aada iyo aada niyadda ugu dhisaya baqashadan iyo orodkan iyo maxaa la dhahdaa khalkhalka inay khalkhaleen markay arkaan gaas gubanaysa isagaa ka hawl yar habka loo damiyo marka haan qarxa male marka dadweynaha waxaan ku waaninaya haddii dab gaas ay arkaan yaani khalkhalin hasdejiyaan yaani wareerin ha eegaan haddii ay ka xidhi karaan valkan ha ka xidhaan haddii kale ka xidhi karaan ha ka xidhaan laakiin yaani biyo ku dayin yaani wax kale ku dayin marka waxaynu nimka u geli doonaa bal dabab baan tusi doonaa iyo habka hawsha yar loo baktiyo maadaama aynu gaas haysano iminka gaastii waynu ka raysanaa dhirta la goynayay dhirtu waxay keenaysaa mushkilad bay keenaysaa maxaa la dhahdaa deegaankii bay xumaanaysaa abaar bay keenaysaa roob la-aantii bay keenaysaa marka maadaama aynu haysano maanta gaas oo sharikado badan inoo joogaan som gaas oo kale dee waa inaan gaas isticmaalnaa iminka adduunka oo dhan dee meel dhuxul laga isticmaalo male waxaa la isticmaala gaas dadku waxay ka baqaan inuu qarxo baa keen waxani ma qarxayo dhaawacuu keeno keliya waxaa ku shaqale oo dambiga sameeya qofka isticmaalaya sababtay tahay iminka marka raashinka lagu karsado aniga yidhi kan ka xidha kaana ka xidha kanay ka xidhayaan markay kaa u daayaan cabudhaadaasi waxay sameynaysaa liig ama habis ayay sameynaysaa halka uu ka rakiban yahay shoolada amba halka uu ka rakiban yahay haanta labadiiba liig waxay dhaa ama way habaysa habkaasoon la arki karin aan la urin karin marka waxay ku fidaysaa madbakhi bay ku fidaysaa qofkii iska baraad la imanaya kibriid buu soo qaadanaya kanuu markii hore ka baktiyey buu siraadaya mar allaale markuu siraado dab ku qabo ayaa waxaa imanaya hilaac oo kale holoc baa ku maraya oo ilbiriqsiya marka ilbiriqsigaasi aada buu u khatar badan yahay waa kan dharka gubaya waa kan dadka jiirka ka gubaya qarxa lagu sheegayna ma qarxe ololkaasuma meesha yimaada marka inanaba nasiib waxaynu ku leenahay had iyo jeer guryaheenu ama madbakheenu daaqadaha aynu wada furan xataa hadday xidhayn meelo waxaa jira hoosta ay ka banaayiin marka hadduu holocaasi yimaado dibaduu baxa wixii qarxa sameyn laha amba holoca dadka dhaawac badan u geysan laha dibaduu baxaya marka haddii se qurbaha waad ka maqasheen hamba guri dumisay haddaad maqashid waxa weyaan gurigaasi isolated buildings baa la dhahdaa waa guryo wada xidhan marka holoci iminkaan kulahaa dibaduu baxaya oo markaas ku baaba'aya meel ka baxo markuu waayo waa inu gidaarada wax yeela marka waa inuu qofka ku dhex jira wax yeela laakiin inagu wax allaaliya wax maanta laga baqo amba gaastaasi dhibaato keenayso ma jirto anaa taana damiin ka qaadaya idinkuun markaa ku shaqaysanaysaana hubsada intaanad siraadin inuu kani ku xidhnaa haddii aanu ku xidhnayn marka waxbaa jira ha siraadin meesha lady ku noqo waxaagii oo xidh markaad siraadin meesha waa nabad markaa gaastii furo maxaa shooladii furo adigoo digtoon markaad dabkii ku qabo marka haantani xataa haddii halasaha iyo oogta iyo dabka ugu weyni dhowr saacadood u hayo ma qarxayso waxaanay ku qarxaynin haamuhu xagga dambe waxay ku leeyihiin safety valve waxa la idhahdo safety valve waa valve nabadgelyada haddii dab aada u weyn haantaasi ay ku jirto muddo dhan waxaa dhacaya gudaha waxaa cabudhaadii baa kordhaysa pressure
built up pressure baa dhacaysa caburaadii baa weynaanaysa caburahaas hadday weydo meele ka baxdo marka haanti waxba yeelaysa laakiin somgas iyo sandarada ama haamaha imika la isticmaalo waxay ku leeyihin xagga dambe markuu caburaadu in gaadho halkuu waxyeelo keeni lahaa halkaasaa sii deynaysa marka way habaysa marka mar haddii uu neeftu ka baxayso ilaa beri dabkaasa haysto wax allaali wax dhacaya male ilaa haantaasi dhammaanayso haddii kale uu halkan dab kaa qabsado uu kani furan yahay wax allaaliyo waad ag sixan kartaa dabkaasi wuxuu yuusgareynayaa gaasa soo baxaysa ilaa intuu dhammaane iskiibuu baktiyaya marka dadweyne waxaan ku dhiirinayaa mar haddii kaasi ku furan yahay wax qaraxa imanaya male haanta iyadaa iska dhammaan doonta acudubileyso halkaa uda dabdamiska u yeedho haddii kaasi furmona waxaad ogaata caburaadii wuxuu gaadhay halkii uu ku furmi lahaa mar hadduu furmona uu dab haysto weligiiba haysto wax qaraxa iyo wax mushkila imanaya male marka dadweyne waxaan ku dhiirinayaa dhuxusha iyo gaasta faa'iidadu waxay kala leeyihiin dhuxusha ka xun kana khatarsan dhuxusha had iyo jeer raashinka laga dhamaystay saacadaad ilaalinaysa dadkeenu ma ilaaliyaane dherigii ma ka qaadeen way iskaga tagaan dabkaasi markaa waxaad adaa soo beelahayay inuu dabkaasi wax yeelayo saan idiin sheegay boqolkiiba 95 dabkaanu tagno waa dab dhuxul ka bilaabma gaasta in yar baanu tagnaa intaan tagnana dadweynaha qalad sameynayo labadii baan xidhaynin marka straadiana dhulkiyo gaas meelna ayay kibriit ku qabanayaan marka waa in hool caasi uu sameysmaa imika waxaan ka soo qaadinaa in tuubadii ka soo baxday maxaa la dhahdaa shooladii inay ka soo baxday marka waxay sameynaysaa way habaysaa haddii la kulanto dab marka saa nimkaan u shii doon anigu haddii dabkaa la kulanto waan yaro kordhinaya haddii dabkaasi la kulanto wax allaaliya wax dhacay male ilaa inta haantu dhammaanayso wax qarax iman maayo wax dhibaato kale iman maayo waxaa laga ilaalinaya dabkaasi inuu meel qabsado dhar qabsado ama meel uu gubi karo qabsado marka ilaa intuu dhammaanayo aniga imika horta ag taagan laakiin dadku hay jeer way khalkhalaan way naxaan way cararaan wax allaaliya wax dhibaata uu geysan kara male waxaad ka ilaalinaysaa wax uu gubo kale soo qabo meelaha kaale qabo intaad qabatid waxaa loo baahan yahay 3 arrimood inaad samaysto kaliya arinta ugu horeysa farta la saaraa farta markaad saartid waad caburisay dabkaas u baktiyaya talabaad waad isku jebinaysaa markaad isku jebisid caburaadii baad ka caburisay wixii raashinka u cuni lahaa gaasta markaan u baktiyaya laakiin idinka dadweyne ahaan waxaan ku dhiirinayaa si aad uga baqanin markaad dabkaan kula kulantid maro labqoyana soo qaado ama tuwaalka ugu fiican tuwaalka afka la iska mariyo ama tuwaalka yar cayruurta ama maro aan nayloon ahayn baad soo qaadanaysaa maradan oo kale baad soo qaadanaysaa oo laabqoyan ah biyaad ku ridanaysaa waad tuujinaysaa isagoo laabqoyan ah adigoon iswareerin saasaad odhanaysaa waa kaa baktiyo markuu baktiyo waa inaad kaa xidhaa haddaad kaa xidhi weydid wixii dab kale ula kulmo amba gaastaa baxaysa dab bay dooranaysaa had iyo jeer gaastan aynu isticmaalino LPG baa la dhahaa liquefied petroleum gas baa la dhahaa way ka culustay gaasasa kale marka had iyo jeer way hoostay marta wixii jilbaha ka hooseeya jilbaha wixii ka hooseeyana gargariyaa wadinka arkade marka dabka uu soo dooranaya markaad baktisid waan markaaba kaa ka xidhaa marka wadinka arkay imika haddii haanta ka soo baxo maxaa la ihahdaa tuubadii dabkaasi dee haantii bu haysta iminka marka waxaad samaynaysaa haddaan iska ag joogno oon busteya barkimaanta dhigto halkaas ka fadhiiso ka shaaheeyo waxaa laliya waxa noqonay male ma kulnaanayo haantu ma kulnaanayso maadaama gaasku ka baxayo marka laba arrimood baad samayn kartaa waxaad samayn kartaa inaad kan ka xidhid inaad ka xidhid oo dabkaasi baktiyo oo keliya intaas ku filan yihin waa mar labaada dib baan u shidi doonaa markii ugu horeysay waatan haanta ayaanu ka xidhnay mar labaada maradaadi laabqoyanta soo qaado gacmahaaga gudaha geli waxaad samaynaysaa laba arrimood 1 iyo 2 waxaan samaynayaa 1 iyo 2
marka saa yidhaahdoon hubsado ayaan haanti ama xidhaya amba markaan ka qaadi daboolka jirkayga dushiisa duldhigi maayo dhinac baan ka istaagaya markaasaan tartiib uga qaadaya dhinacaasan kasoo qaadaya dhinacaasaan kasoo qaadaya haantaan iska xidhaya marka haantaan iska xidhaya aada bay hool yartay maraa soo qaado adigoon degdegin adigoon waxba sameynin 1 iyo 2 ku hubso marka afka ku hubso markaasaad ka xidhi kartaa amba markaad ka qaadi marada adigoo digtoon baad haanta xidhaysaa waxaan imika idin tusi doonaa mar haddii haantu gubato gaasaasa gubani haantu guban mayso marka dadweyne hada jeer biyo kula cararaan biyuhu waxay ku tareen male biyo aniga soo qaatay waxa laali wax ku taray male waxa ku taray male weligii baktiin maayo hatta haddaan baaldi dhan soo qaato waxa aragti ku samee ma baktiyo markaas oo kale inagii aragnay amba waa ka xidha amba waa maro ku daboosha iminka waxaan sameynaa baaldi soo qaadanaysa wala soo gaadaysa waka wad xidhaysa meel wada baaldi noo yaala markaad gaas hadii jeer isticmaalaysaana waxyaabaha aad ku baktiin doontaan waa saag dhiga marada la qoyan tan saag dhiga waad xidhi kartaa baaldi aad ku baktiin kartaa marka wax allaaliya khatar uu leeyahay maanta gaasta looga baqayo amba dumarku yiraahdaan gaas baa lagu qarxay wax gaas oo qarxa ma jirto tabta feenuska ma qarxo haddana waxa wana hebel waxa gubay feenus baa ku qarxay kuma qarxine gaas tium baa qabsatay jirkiisa marka taa feenuskana mar dambe aynu ka sheekeyn doonaa waxaan damiin idinku siinayaa in gaasta iyo dhuxusha gaas ay dhaanto xagga cimilada xagga isticmaalka xagga nabadgelyada gaasta ayaa midda kale waxa si fiican u xusuustaan markaan ku leeyahay caburaad fara badan markuu yimaado sandarku xidhan ama haantu xidhan tahay waataan yidhi waxbaa furmaya valve xagga dambe ka furmaya marka kii furmaya waa kaas weyn caburaad ka fara badan inta lagu talagalay markuu yimaado si aanu caawaraad u geysanin waxa furmaya kaasa furmaya marka haddaad kaa maqashid soo furan dunidu waa nabad marka oo haantii wax dabkaas wax u yeelay male waxaad ku talagalaysaa sidii haanta dabka looga baktin lahaa mar haddii kaasi shaqeynayo amba kani shaqeynayo dabjiro wax allaali wax mushkila iman karta male markaad soo gashid markaad haanta usoo gashid ama soo gashid aad maqashid sanqadh hawo baxaysa wax allaali wax dhibaato male waxaa ku waajib adiga inaad dabdemiska u yeertid 9 eber numberka la dhaado inaad u yeertid laakiin goor u yeedho waxaan idinku darayaa hadda jeer dumarku waxay jecel yihiin waxay dhahaan laxooxda dhuxusha loo karsado ayaa ka macaan waxaas waa iska hadal imika bal ku deedinku laxooxda lagu kariyo shoolada iyo laxooxda dhuxusha lagu kariyo waxa nadiifsan oo ka macaan kan maxaa la dhahdaa gaasta lagu isticmaalayo marka dumarka hadda jeer waxay yidhahdaan gaasta laxooxda laguma samayn karo taas waa iska hadal waa la soo tijaabiyey waa la ogaaday laxooxda waxaa ku fiican dabka gaasta saan ku sheegay uu ka nadiifsay uu ka macaan yahay bal idinku daya waxaan kusoo gabagabeynaya dadweynaha waxaan damiin ku damaad uga qaaday anigu in maxaa haamaha gaastu inay ka nabadgelyo badan yihiin dhuxusha inay ka nadiifsan yihiin dhuxusha xagga deegaanka inay kaga fiican yihiin xagga raandhiiska iyo isticmaalka inay kaga fiican yihiin xaggii lacagta waa isugu mid halkaad haan kale ka isticmaali lahayd 2 ama 3 jawaan dhuxul aad isticmaalaysa markaad habka fiican u isticmaashid markaad raashin ka dhameystid aad ka xidhi shoolada aad ka xidhid maxaa haanta haddii adigu as khasaarinaysid halkaas aad ka xidhid haantu ku furan tahay de way habaysaa marka waa in ka hor dhamaata marka dadweynaha waxa kula talinaya markaad raashin ka dhameystaan ka fikira khatarta aad keeni doonto waa ka xidha maxaa la shoolada haantana ka xidha marka saasaan kusoo gabagabeyn doonaa haddii